waad inaad dhakhtarka aaddaa. Walaalkii wadna xanuunka wax badan ayuu ku hayay. Sariirta kamaad kici karta anoona garbaha ku qaban. Dhakhtar, ayaamahan waxaan isku arkay calaamado iga yaabiyay. Waan wareerayaa, waan neeftuurayaa, wareerkaygana wuxuu badiyaa markaan rabo inaan istaago. Dhiigga laga qaaday falis waxaa laga helay inay birta ku yar tahay. Anemia macnaheedu waa inaad leedahay tiro aad u yar unugyada dhiigga guduudan. Unugyada dhiigga guduudan waxay muhiim u yihiin qaadista oksijiinta. Yaraanta birta macnaheedu waxaa waaye in baqaarka birta oo jirka ku jiro inay faaruqeen. Birta waxaa loogu baahan yahay inay sameyso borotiinka hemoglobin. Borotiinka hemoglobin waxay u gudbisaa oksijiin marinka dhiigga. Hemoglobinta waxay ka qaadaa oksijiinta sanbabaha waxay u gudbisaa unugyada jirka. Anemiyada waxay imaataa markii tirada hemoglobinta yaraato. Taasna waxay keentaa in heliinka oksijiintana yaraato. Jirka wuxuu isticmaalaa birta siduu u sameeyo borotiinka hemoglobin. Marka tirada birta ay yaraato, waxay saameynaysaa sameyska unugyada guduudan, taasoo keenaysa inay yaraato hemoglobinta jirka. Sidaa awgeed, jirka wuxuu helayaa oksijiin yar. Calaamadaha iyo astaamaha lama dareemo muddada ugu horeyso. Astaamaha lagu garto markii hemoglobinta yaraato, taasoo keenaysa inay oksijiinta yaraato waa daal, hurdo badan, gacmo iyo lugo qabow, madax xanuun, dadaal yaraan, tabar yar, dawakhaad, neefsashadoo dhibta. Hadafka daaweynta waa in la kordhiyaa hemoglobinta iyo in meesha laga saaro cilada la xiriirta yaraanta birta. In la cuno cunto birta laga helo sida beerka ama spinachka iyo kaniiniyada birta.